Allah u naxariistay meydka wasiirka arrimaha gudaha ee Jubbaland General Maxamed Warsame Darwiish ayaa maanta lagu aasay magaalada Kismaayo. Aaska ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland, mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Jubbaland iyo madax ka socotay dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Maxamed Warsame Darwiish ayaa ku geeriyooday dalka Jarmalka waxaana maanta si weyn loogu sameeyay aas qaran. Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafda Gareen ayaa diyaarad militari waxa ay ka qaaday magaalada Baydhabo ee caasimadda kumeel gaarka ah iyadoo uu qaaday dalka Itoobiya. Sida uu qorshuhu yahay, madaxda sare ee dalkaasi Itoobiya ayuu kula kulmayaa magaalada Addis Ababa waxaana laga wada hadlayaa ammaanka labada dhinac ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya. Isbeddelka degdega ayaa la aaminsan yahay inay keentay markii Mukhtaar Robow ay dowladda Soomaaliya ka dhigtay wasiir ka tirsan xukuumadda xilli Addis Ababa ugu jiro liiska dadka argagixisada ah ee loogu baadigoob badan yahay. Maalmo ka hor ayaa weerar lagu qaaday xuduudka Koonfur Galbeed kala dhexeeya dowlad deegaanka Soomaalida. Dalalka dariska la ah Soomaaliya ayaa saameyn siyaasadeed ku leh siyaasadda gudaha ee Soomaaliya, waxaana inta badan dhacda marka madaxda dowlad goboleedyada iyo madaxda federaalka ay kala aragti duwanaadaan in qaar ka mid ah dowladaha dariska ah ay la saftaan madaxda ay danaha gaarka ah ka leeyihiin ee dowlad goboleedyada. Wafdi sare oo ka socda dowladda Itoobiya ayaa gaadhay deegaanada Puntland halkaasi oo ay ka wada hadlayaan madaxda Puntland iyo madaxda ka socota dowladda Itoobiya arrimaha dhinaca amniga gudaha iyo iskaashiga labada dhinac iyo sidii loo adkeyn lahaa xiriirka dhinaca ammaanka. Wafdiga Itoobiya ayaa goor hore tagay magaalada Beledweyne, Baydhabo, Hargeysa iyo weliba gobolka Gado oo ay dhammaan dhinacyada kala hadleen arrimaha amniga iyo siyaasadda. Siciid Cabdullaahi Dane ayaa toddobaad ka hor magaalada Addis Ababa kula kulmay madaxda dowladda Itoobiya oo ay ka wada hadleen arrimaha labada dhinac u dhexeeya. Naga intaas warkii aad kala socoteen galka wararka fadlan daawade haddii aadan horey noola socon waxaanu kaa codsanaynaa inaad channelka subscribe noo saarto barnaamijkana aad noo sii share garayso si uu dad badan u gaaro. Mahadsanid.